wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Somaliland iyo waliba gudida gacanta ku haysa dhismaha jaamacadda degmada Sheekh ayaa maanta kulan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka degmada Sheekh oo ay xal waramayeen halka uu marayo dhismaha jaamacaddaasi iyagoo dadka ku dhaqan degmada Sheekh iyo guud ahaanba Somaliland ku booriyay inay ka soo qayb qaataan dhismaha jaamacaddaasi isla markaasna meel kala soo jeestaan gudida gacanta ku haysa dhismaha jaamacaddaasi waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maayirka degmada Sheekh Ibrahim Cabdullaahi Cabsiye iyo xildhibaan Khadiija Xuseen Xaaji Xasan oo si faahfaahsan uga warbixiyay xaaladda jaamacaddaasi isla markaana bulshada u soo bandhigay waxay uga baahan tahay jaamacaddaasi bal waxa aynu wadno iyo qaybta reer Sheekh qaadan doonaan qaybta hooyooyinku qaadan doonaan qaybta dhalinyaradu qaadan doonto qaybta aqoonyahanku qaadan doono qaybta Allahumma salli ala Muhammad ganacsatada reer Sheekh qaadan doonto intaba waa ka tashan doontaan idinkoo xor u ah abaabuli doontaan sida lacagta u ururinaysaan iyo sida wax u bixinaysaan dama jiro carruurteena halka u dalan dooshay iyo tijaartii halkay carruurteedii la qabatay waa ogtihiin qof kasta oo reer Sheekh mid yar iyo mid weyn kuuliga wax dhisa waxa laga rabaa inuu wax dhigo oo wax ku darsado geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga daba qaatay odayaal iyo waxgarad tiro badan oo dhammaantood sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha jaamacaddaasi isla markaana baarigay una mahad celiyay gudida gacanta ku haysa dhismaha jaamacaddaasi waxbarashada qiimaheeda isu sheegi mayno reer Sheekh waxaan ku faa'iidnay magaca ku helay qoys walba oo inaga mid ah gurigiisa iyo maxaan ku raadin taariikhdiisu uu ku saleysay oo garanayna dadka halkan jooga waa asadkii Somaliland ayaa halka fadhiya weliga reer Sheekh ha ahaadaan laakiin waa asadkii Somaliland ay lahayd jaamac baan ka tilmaamay jaamacadda bisa la yiraahdo Talyaaniga ku taalo waa ninkii wanka u galay sidee meel u socotay شعبنا يسوون عمروا كان بيليهين وركان الحمد لله رب العالمين ما ترك وحكى صلاة وحري وافطرني حري وافطرني والشيخ hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland iyo qoraa Jaamac Muuse Jaamac iyo waliba sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire waxa kale oo runtii muxuu ahaa iyadana la dhamaystiray oo ka warhaysaan oo hoolka laftiisa muxuu ahaa lagu furay in la bilaabo dhismihii deerka jaamacadda marka maadaama jaamacaddu ay tahay jaamacad babliga ama jaamacad dowladeed oo bulshada muxuu ahaa reer Sheekh bulshada reer Somaliland ay yeelanayaan dowladuna ay lacag ku bixinayso waxaa lagama maarmaan loo arkay in la mariyo guddiga qandaraasyada qaranka marka guddiga qandaraasyada qaranka muxuu ahaa la mariyay iyaga baahiyay waa loo tartamay waxa uu tartamay 11 shirkadood baa ku soo xareystay 9 shirkadood baa ku soo xaadiray 9 shirkadood baa guddiga qandaraasyada qaranka ay kala xureen guddigana waa ka madax deegaankeena badbaadsano kala soo baxno oo maalinta ay 10 sano kadib aanan maqal Dr. Saad Ali Shire wasiirku wuxuu sheegay wuxuu yiraahdo markaa Sheekh joogay baradhada iyo tamaandhada sheekhyada burco oo dhan siin jirtay maanta cidi wax ma beerato maanta way naga waan ku celcelinaya waan ku soo talgalay qadadaasi wariga qadada aanta kaga noqonayo waayo oromadii baa xidhatay albaabkoodii oo baad ka taagan haday jaamacadeena iyo dadkeena caruurteena noo soo baxaan oo ay dagaagkeena taasi ma dhici doonto kuma dhici doonto boqolka sano soo socda loo tago hadayna jaamacaddu jino cusbitaalku ma yimaadeen cusbitaalka jaamacadda keentay Sacuudigu wuxuu yiri waxaan idin qalabeynayaa shaybaar weyn shaybaarka qaranka weyn baan idin qalabeynayaa haddii markaa idinku aad dhamaystirtaan dhismaha waxa keenay jaamacadda keentay dhismaha maxaa shaybaarka in haddii kale laynama siiyeen war weel baynu samaysaneen dunida ku xidhanno waxna noogu soo dhacaan maxaan gacmaha isku qabsan waa Maxamed Ali Ahmed Maxamed Kabe telefishinka caalamiga ah ee Ariel magaalada